بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحرمنا ما انتدو إلى هيرادو إن انكه الله قيب كميدة وحيابا أتقانان وتكنولوجيا وحرمنا مركا إن انكشه كيو قيبها أي هيسو جامعة مقدشو تكنولوجيا دو أي كهيسو خاصة كلية كمبيوتر ساينس and انفورميشن تكنولوجي ديبارتمنتيا جامعة مقدشو أفرا أيان ربا in aan wax ka iraahdo haduu ilaahay iraahdo daqiiqadaha soo socda kulliyada computer science and IT ee jaamacadda Muqdisho waxa la furay February 2003 waxa ay leedahay hadda kulliyada saddex takhasus oo kala duwan takhasuska koowaad oo ah computer science takhasuska labaad oo ah information technology iyo takhasus saddexaad oo ah enterprise network markii la yiraahdo muhiimadda ay leedahay cilmiga teknolojiyadu aad bay u ballaaran tahay guri walba waxaan rajaynayaa ama maxaa la yiraahdaa aan ogahay in uu teknolojiya taabtay ama ay ka warhayaan sidaas daraadeed warkayga waxaan ku khulaasayn doonaa saddexdaas takhasus ee aan sheegnay faa'iidada ay leedahay bulshada waxtarka ay leedahay ardada ay jaamacadda ka soo saartay waxqabadkooda iyo shaqooyinka opportunity-ga ee u furan magaalada markii la yiraahdo teknolojiyadu waa wax aad u baaxad weyn laakiin waxaan u sameyn doonaa hierarchical top and down ah min meesha ugu sareysa ilaa iyo meesha ugu hooseysa haddaan tusaale u soo qaato meelaha ugu sareeya waa dawladaha hay'adaha shirkadaha bangiyada ilaa hoos u soo deg ilaa businesska oo individualka oo shakhsi ah markii loo yimaado iyo dhammaan nolosha caadiga ah ee habka ay u socon lahayd qof walba noloshiisa wuxuu qayb ka yahay isticmaalista teknolojiyada muhiimadaas marka waa waxa maxaa la yiraahdaa ugu badan ay dadku wada og yihiin ama ay ka wada dharagsan yihiin ama ay wada fahmi karaan cilmiga teknolojiyada uu leeyahay ah computer science and IT haddii maxaa la yiraahdaa aan mid u sharxo kulliyada computerka ama departmentiga ugu horeeya ee computer science-ka ee February 2003 ay jaamacadda Muqdisho hirgelisay ama ay furtay computer science-ka markaan leeyahay marka reerarka halkii aan soo sheegay ka soo bilaabanaysay governmentigii sida u soo socotay ku soo dhamaanaysay businesskii shirkadihii wixii dhan ay ku hoos jiraan oo top and down kaas oo levelska sida u kala sareeyaan dabcan waa fahmi kartaa baahiyadu markastaba uu businesskaagu ama governmentigaagu ama educationkaagu ama shirkadaadu ama bangiyadaadu ay sii siyaado waxa kugu sii siyaadaya oo sii kordhaya oo qayb ka sii ah teknolojiyada aad u baahan tahay inaad isticmaashid baahiyada customerska kaaga imaanaya soo hierarchicalkaas waxaan rabaa inaad igala socotid meesha ugu hooseysa inaan ka soo qabto meesha ugu sareysa way ka sii baahi badan tahay waxaan rabaa marka inaan dareensiiyo baahiyada departmentiyadaas ee kulliyadu jaamacaddu bixiso meesha ugu hooseysa anigoo ka qabanaya meesha ugu hooseysa marka waxaan ka dhigayaa businesska individualka ah qof kasta businesska uu furto maxaa baahi ah oo ugu baahan yahay in computer science ama IT ama network qaybaha saddexda departmenti ee kulliyada ugu furan ee jaamacaddu ay leedahay haddii aan ku bilaabo cilmiga computerka waa kan koriya ama dhisa maamula maxaa la yiraahdaa haga barbaariya horumariya baahiyada ganacsigaaga qaasatan dhanka teknolojiyada marka la fiiriyo xirfadaas marka qof kasta wuxuu u baahan yahay in uu sare u qaado si uu ugu fududaato shaqadiisa si uu ugu fududaato ganacsigiisa si uu ugu fududaato shirkadda uu yahay ama businesska wuxuu doonaha noqda marka jaanibka kale la fiiriyo ardada barata computer science takhasuskaas ardayga barta waxa shaqada ugu badan uu qabanayo ay tahay in uu xalliyo baahiyada businessyadaas ka jira baahiyada shirkadahaas ka jira baahiyada dawladahaas ka jira ee ku tacalluqda dhanka teknolojiyada sida uu xalin lahaa softwares ahaadaan applications ahaadaan maxaa la yiraahdaa developments ahaadaan horumarinada ugu dambeeya teknolojiyada ay marayaan baahiyada sida uu xalin lahaa ayaa ardayga lagu baraa ardayga ka qalin jabiya marka takhasuskaas ee computer science-ka ah maxaa fursadaha oo u furan markuu suuq yimaado fursadaha u furan waxa kamid ah software developer inuu noqon karo qof dhisi yaqaan softwarada qof naqshadeyn yaqaan softwarada qof abuur yaqaan qof wax ku siyaadin kara applicationada computerada sidoo kale qof la socon kara baahiyada macaamiisha company kasta macaamiil buu yeelanaya
baahidaas qof la socon karo inuu yahay isla markaana ka jawaabi kara baahidaas hab software ugu jawaabi kara waxa la soo baray ayaa ah software developer baahidan kambanigan uu qabo customerkaas qabo ayuu wuxuu u bedelayaa hab software waxaan rajaynayaa inaad ila socoto wali sababtoo ah waxa aan qaatay title-ka aan qaatay waa business meesha ugu hooseysa marka aan fiirino levelada teknolojiyadu ay saameydo oo aad u fara badan darteed marka meelaha kale hadaad u sii barbar dhigtid ama waa la mid ama way ka siyaadsan tahay qodobka labaad ee ardayga fursad u ah marka uu barto computer science inuu ku shaqeysto waxa kamid ah program analyst waa la fagurista iyo qorista program tayo leh programkaasoo awoodaya in uu xaliyo baahiyadii customerka ee uu u qabay businesskaas ama ganacsigaas baahiyadaas marka waxay xoojin doonaan hadba baahida ka jirta customerka iyo ganacsiga intaba waxa kamid ah web developer inuu noqon karo qof dhisi yaqaan web inuu dhisi karo web ama goob asaas u ah shaqooyinka ganacsiga iyo ka shaqaysiinta adeeg isku xiraya customerska iyo businesskaaga iyo businesskaaga ama ganacsigaaga isku xiray kaas ayaa loo yaqaanaa marka web developer qofka in uu dhisi karo iyo jaanibyo fara badan oo inta ka badan ayuu awood u leeyahay ardayga ka qalin jabiya qaybtaas computer science-ka ah ee idin furtay ama idin hayso jaamacadda Muqdisho oo saan soo sheegnay 2003 ay furtay kulliyadu departmentiga labaad waa information technology ama IT ayadana waxa la furay February 2003 takhasuskan labaad ee IT-ga waxa uu la mid yahay cilmi ahaan takhasuskii hore ee computer science-ka laakiin waxa uu uga duwan yahay qaybo kamid ah koorsooyinka ka baxaya sida tusaale ahaan multimedia oo kale ardayga barta marka cilmiga IT-ga wuxuu awood u leeyahay in uu ku dabaqo teknolojiyada shaqooyinka joogtada ah si la mid ah ganacsiyada dunida ka jirta ama dunida ka jira si la mid ah ayuu ugu dabaqi karaa kambaniyada kala duwan ama shaqooyinka kala duwan ama hay'adaha kala duwan ama shirkadaha kala duwan ama bankiyada kala duwan ama dawladaha kala duwan waxa kala hormariyay waa dabaqida isticmaalida teknolojiyada ardayga barta marka IT asagana maxaa u furan oo shaqooyin marka uu qalin jabiyo uu sameyn karo oo uu ku suuq gali karo ama uu ku shaqeysan karo waxa ugu horeeya software engineer inuu noqdo qof software dhisi kara wax ka bedeli kara sameyn kara horumarin kara software hore ugu jiray company-ga ama businesska uu ku biiray ama dawladda uu tagay ama bangiga uu tagay software hore u isticmaalayeen in uu wax ka bedeli karo waxa kamid ah information security analyst inuu noqon karo qof difaaca ka hortaga weerarada ka imaanaya ganacsiga dhanka internetka kaaga imaanaya ee rabaan ama hadafkoodu uu yahay in ay xadaan xog muhiim u ah sirta ganacsigaada kaasna waxa loo yaqaanaa information security analyst waxaan rajaynayaa in ay la socotid waayo waxa aan ka hadlayo waa saddexda takhasus ee u furan jaamacadda qaasatan kulliyadda computer science-ka ee computer science and IT-ga departmentyada kala ah computerka IT-ga network fieldiyada aan ka hadlayana waa field kooban oo waxaan qaatay fieldiga ugu hooseeya oo ah businesska fursadaha wili u furan ardayga barta IT-ga ee uu ku bardhigi karo ama uu ku shaqeysan karo waxa kamid ah database administrator inuu noqon karo kaydiyaha maamulaha iyo xifdinta database u gaara ama system u gaara xogta ganacsigaas ama xogta shirkadaas ama xogta hay'adaas marba title-ka aad qaadatid kuwii hore aan u soo sheegnay ah waxa kamid ah opportunity kale ama fursadaha kale uu haysto inuu noqon karo qof computer hardware engineer ah dayactiri kara computerada bedeli kara qalabyada xumaaday ama halaabay hardware-iska loo yaqaan ka shaqaysiin kara systemyada fadhiidka ah ama kici waaye kicin kara oo ka shaqaysiin kara iyo wax la mid ah
oo intaas ka sii badan ayuu awood u leeyahay in uu ku shaqeeyo ama uu qabto. departmentiga saddexaad ee ugu dambeeya waa enterprise network. waa department cusub oo ay jaamacaddu ku soo kordhay ee lagu soo kordhiyay April 2017 kadib markii la arkay baahiyada ka jira wadanka. markii network la yiraahdo waxa ugu horeeya qof walba waxaan ognahay inuu isticmaalo telefoonkaagu wuxuu network ku leeyahay shirkadda aad ka qaadatay systemka ama aad ka qaadatay simikaarka. simikaarkaas wuxuu faa'iideynayaa in aad la xiriirtid dad kale. maxaa ka dambeeya haddaba telefoonkaaga? maxaa ka dambeeya? waxa ka dambeeya waxa la yiraahdo networks. Soomaalidu aad ugu baraarugsana ama uma arkaan field bachelor ku haboon, laakiin waxaan ognahay aan aragnaa arday fara badan oo ka baxa departmentiyada kale ee computer IT inay u weecdaan marka ay gaaraan masterka ayagoo markaas ku baraarugay muhiimaddu ay leedahay departmentiga network. hadda network qayb ka sheego takhasuskan waa takhasus muhiim u ah dabcan bulshada Soomaaliyeedna ka daahan ama ka daboolan waxtarka uu leeyahay. waxa kamid ah network administrator. networkyada sidaan sheegnay cableska iyo isku xirka systemyada. isku xirka markaan ka hadlayo systemyada waa company-ga dhexdiisa ama organization-ka dhexdiisa ama shirkadaha isgaarsiinta dhexdooda. company kasta wuxuu leeyahay network. mid kalena uu ka baxsan yahay waxa loo yaqaanaa cellulariska oo celleski iyo towerski wixii wax gudbinaya waay. marka waxaan ka hadlayo waa network administrator-ka waa isku xirka. waxa kamid ah tusaale ahaan in la adeegsado device-yada router-ka, switch-ka iyo qalabyo la mid ah firewall-ka iyo agabyo ka badan inta ugu tala gashay maxaa la yiraahdaa jaamacaddu in ardaydu inta ay dhiganayaan ku tababaraan la leeyihiin laabab horumarsan waliba oo laababkaas oo la mid ah laababka caalamka ka jira. network-ga departmentiga marka April 2017 ay jaamacaddu furtay iyadoo uu ka duuleyso sidaan hore soo sheegnay baahiyada ka jira wadanka. waxa kale oo maxaa la yiraahdaa ku jira baahiyada network loogu baahan yahay any kuwii hore sidaan uga soo hadlo kale any department ama business ahaado ama ha ahaado maxaa la yiraahdaa hay'adaha ahaadaan ama bangiyada ahaadaan dhammaantood waxay u baahan yihiin network la'aan ma suuroobayso ama ma hirgalayo in uu shaqeeyo. gunaanadkii jaamacadda iyo kulliyadu waxay balan qaadayaan in ardayda Soomaaliyeed helaan waxbarasho u dhigma heer ahaan kuwa caalamka iyo wadamada horumaray sida manhaj horumarsan, manhaj update la jaan qaadi kara wadan kasta oo aad doonaysid inaad ka dhameysatid heerarkaaga labaad iyo heerarka saddexaadba. inaad helo lab dhameystiran inta uu dhiganayo jaamacadda u dhameystiran software-kii ugu dambeeyay update-ka ahaa ee wax lagu programmiyo ee applications-ka ah ama software ahaan loo isticmaalo. in uu markastaba la socdo waxyaabaha update-ka ku ah ama ku soo ziyaaday ee programmisa ee la adeegsado caalamiyan loo adeegsado. mar labaad iyo mar saddexaad waxaan idin leeyahay ku soo dhawaada gacmo furan jaamacadda Muqdisho, ku soo dhawaada kulliyadda Computer Science and IT, ku soo dhawaada saddexda takhasus ee kala Computer Science, Information Technology ama IT iyo Enterprise Network. saddexdooduba waa saddex shay oo aasaas u ah ama saddex base u ah isticmaalida teknoolajiyada heerarkeeda kala duwan. waxaan idin rajaynayaa guul. waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.